بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta cashirkeena waxaan ka bilaabaynaa half life calculations part 3 qaybta saddexaad xisaabaad ku saabsan cimri bar ama nolol barkeed. waxaan soo qaadanay part 1 iyo part 2, example 1 iyo example 2. maanta waxaan joognaa examplekii saddexaad, tusaalihii saddexaad. the half life nolosha uu leeyahay curyaha loo yaqaana iodine oo sumadiisu ay tahay I capital, isotopka isku godka nambarkiisu uu yahay 131 131 is wuxuu la egyahay 8.07 days 8.07 maalmood. if 25 grams haddii 25 gram oo ah iodine 131 iodine 131 are left ay soo hartay after kadib 40.35 days 40.35 maalmood kadib, how many grams were imise gram were in the original sample ayuu ahaa sambalkii laga soo bilaabay, muunadii laga soo bilaabay. waxaa lagu weydiiyey imise gram ayuu ahaa at the beginning, bilowgii. half life waa lagu siiyey iodine 131 wuxuu la egyahay 8.07 days. half life waxaa loo qaataa t half waa 8.07 days. 25 grams are left 25 gram aa soo hartay. marka waa amount of substance at the end inta soo hartay waxaa loo qaataa nt waa 25 grams. after kadib 40.35 days 40.35 maalmood kadib. half life haddii aan haysano, haddii lagu siiyo wakti kale, waktigaas kale wuxuu noqonayaa time gun ama elapsed time, wakti socday ama wakti laga soo tegay. waxaan haysanaa 40.35 days. how many grams were in the original sample? imise gram ayuu ahaa intii laga soo bilaabay. original sample means amount of substance at the beginning ayaa nala weydiiyey bilowgii imisaan haysanay. bilowga waxaa loo soo gaabiyaa n o ama n sub 0. waaya waxaan u xallin karnaa laba siyaabood. labada siyaaboodeen u xallin karno examplekan wuxuu noo noqonayaa mid inaan isticmaalno by formula, midna inaan isticmaalno without formula. labadaba insha allah si fudud ayaan idiin tusi doonaa. aan ku hormarno by formula. waaya formula aan isticmaalno, kanna waa la mid asagiyoo lasoo gaabiyo waa. waaya intii meeqaan haysanaa 25 grams ku bedel no ama n0 ma haysano, inta haafkii noo qor, inta n noo saar. inaan raadinaynaa marka n maxaa lagu helaa n smola t oo loo qaybiyey t half. aan soo raadino n is equal haye t meeqaan haysanaa 40.35 maalmood. t halfna meeqaan haysanaa 8.07 days maalmood. waaya maalin iyo maalin isku kansal. n smola maxay la mid tahay? aan calculator ka qaadanay xisaabino 40.35 divide by 8.07 waa 5. 5 ayaan soo helnay. 5taas maxaa waay
5 half lives waay 5 half lives 5 cimri bar waaye aan ku bedelana inta 25 grams is equal NO halfkan aan ka dhigano 0.5 saas waa u qori karnaa decimal powerkan n waa 5 marka intaas marayso meel walba u qaybi 0.5 to the power 5 intana u qaybi maxaan helaynaa 25 gram oo loo qaybiyey 0.5 to the power 5 is equal NO ama N0 0.5 to the power 5 oo loo qaybiyey 0.5 to the power 5 kan iyo kan isu saar NO waxay lamid tahay labadan la isu qaybiyey NO ama N0 waxay lamid tahay labadan la isu qaybiyey aan calculatorka qaadanay maaragtay isu qaybino 25 divide by 0.5 power 5 800 aan soo helnay 800 grams waayahay without formula aan fiirino marka hore formula uga soo shaqaynay 800 aan soo saarnay bal haddana aan aragno okay waxaan ka bilaabaynaa inaan haysano 25 gram inay noo soo hartay laakiin waxaan rabnaa original sambalkii meeqan ka soo bilownay intii soo harto waaye markii ay ku dhacday 5 cimri bar cashirka hore waxaan kuu sheegay marka aad haysato nt ee aad raadinayso marka aad haysato N0 ee aad raadinayso nt in loo qaybinayo 2 hadda cagsigeedii waaye cashirkii hore waxaan kuugu soo sheegay waxaan raadinaynay nt N0na waa haysanay markaas waa u qaybinaynay sababtoo ah N0 qiimaha weyn waaye ntna waa inta soo hartayoo iyadu mar walbaba haraagu waa yaryahay mar kasta waxaa weyn nt iyo NO iyo nt waxaa weyn NO marka haddeertaan waa ku dhufanaynaa labaan ku dhufanaynaa laakiin cashirkii hore waa u qaybinaynay markii aad haysato NO ee aad raadinayso nt labaa u qaybine meeqa jeeraa u qaybine inta n ay kuu soo baxdo oo jeer laakiin hadda waxaan raadinaynaa NO tii weyneedaan raadinaynaa qiimihii weynaadaan raadinaynaa marka hadda waa ku dhufanaynaa how many times aan ku dhufanaynaa 5 times mar walba waxaa xukuma in loo qaybiya 2 inta jeero loo qaybinayo iyo 2 inta jeero lagu dhufanayo waxaa xukuma n smaller marka hadda 25 gram aan haysanaa laakiin 5 times ayaan waxaan ku dhufanaynaa times 2 waaye balaan samayno 25 grams aan ka bilaabaynaa half life-ka koowaad ku dhufa 2 2 ku dhuf waa 50 waaye half life-ka koowaad 2 ku dhufanay 25 50 ay tagtay half life-ka labaad 2 ku dhufanay 50 100 gram ay tagtay half life-ka saddexaad 2 ku dhufanay 200 ay tagtay 200 gram half life-ka afraad 2 ku dhufanay times 2 400 gram ay tagtay half life-ka shanaad ee ugu dambeeya 2 ku dhufanay 400 2 ku dhufo waa 800 gram ardayow qaabkaas ayaa looga shaqeeyaa without formula saa u jeedaan formula markii lagu shaqeeyo iyo without formula waxay keeneen isku ansar
formula kanan ku shaqeeyey waayo kana aan ku tusiyo saa u jeedaan markii formula lagu shaqeeyo 800 gram ay soo baxday without formula la-aanna waxay soo baxday 800 gram kanaan ku shaqeyna formulaha kana aan ku tusiyo waa la mid soo qaado formulaas waa kanoo la soo gaabiyey sidaan uu qoran yahay 2 power n waaya marka hore n smolla soo raadinay waa soo helna 5 haysanaa ku bedel maxaan helaynaa waxaan helaynaa NO inay la mid tahay NT meeqa waa 25 grams waa 25 gram oo lagu dhiftay 2 power n 2 power 5 laakiin waxay noqonay 25 gram oo lagu dhiftay 2 power 4 waa 16 okay 16 times 2 waa 32 marka 2 power 5 is equal 32 32 iyo 25 isku dhufo marka okay 25 times 32 800 grams saa u jeedaan dhammaan ansarkii waa isku wada mid haddii aad tahay saaxiib nagu cusub oo cashirkan aad ku qanacday fadlan like share and subscribe commentna ka bixi haddii aad tahay saaxiibadii hore noogu xirnaana waa ku mahadsan tahay sii sheergaree like-ta badi asxaabtaada u sheergaree ka faa'iideyso chemistry ku baro lacag la-aan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.